xidiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City Bernardo Silva ayaa qiray in guul darro ka soo gaartay Liverpool kulanka adag horyaalka Premier League ay habeenka Khamiista wada ciyaari doonaan Etihad Stadium si ay u soo afjari doonto rajada Sky Blues ka qabto difaacashada koobka Premier League. Farqiga u dhaxeeya labada kooxood Liverpool iyo Manchester City ayaa gaarsiisan 7 dhibcood kadib markii ay kooxda Pep Guardiola la kulantay 3 guul darro, waxayna guul darradii ugu dambeysay kala kulmeen Leicester City kulankii ka dhacay King Power Stadium. Wiilasha Charge Club ayaa wali xil ciyaareedkan 2018-2019 la kulmin wax guul darro ah horyaalka Premier League waxay gaareen 17 guul iyo 3 barbara ah. Haddaba Bernardo Silva ayaa ka hor kulanka la hadlay saxaafadda wuxuuna sheegay waan ogahay in xoogaa yar uu saaran yahay cadaadis sababtoo ah haddii aanan guuleysan aad ay u adag tahay in aan la socno ayaga. taasi waa wax aan isku dayayno inaan sameeyno ciyaar kasta waxaan isku day doonaa inaan guuleysano 3 dhibcood gaar ahaan marka aan ku dhex jirno jamaahirteena waxaan isku day doonaa inaan guuleysano kulankan waa inaan u maleynaa inaan ku guuleysan karno kulan kasta ee suuragal ah waa inaan isku daynaa sida aan ku gaari lahayn iyaga isla markaana aan u soo yareeno farqiga inoo dhaxeeya waana taas waxa aan isku day doono inaan sameeyno kulanka soo socda.